السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وأحمد نونو. halkaad nagala socotiin waa bijiskiina A Square Ahmed Academy aad nagala socotaan insha Allah maanta waxaan dib u bilowanaynaa insha Allah casharkeedii noo soo socday ayaan maanta insha Allah dib u bilowanaynaa. Okay, maanta casharka meesha noo saaran wuxuu noqon doonaa insha Allah operations of fraction. Operations qaabka ay u shaqeeyaan fractionada annagoo ka shaqeyn doono tusaalooyin fara badan iyo samariyaal fara badan iyo qeexitaano fara badan oo soo keeni doono insha Allah. Okay, operationadan ayaa waxay kala noqon karaan sida wada ogtihiin xisaabta afar runbay badan basiska ay ahaayeen addition, subtraction and multiplication and division. Hadaba qaybteen noogu horeysa maanta waxaan ku baran doonaa insha Allah operations of fraction qaabiyada ay u shaqeeyaan fractionada qaabka la isugu daraa jajabka qaabka la isugu geeyaa qaabka loo kala jaraa qaabka la isugu dhuftaa qaabka la isugu qaybiyaa. Marka casharkeena qaybteen noogu horeysa maanta insha Allah waxay noqon doontaa addition of fraction. Addition of fraction. Isugeynta jajabyada ayaan maanta baran doonaa insha Allah. Okay, qaabka la isugu geyn karo way fara badan yihiin. Sometimes waxaa dhici karta in tusaalayaasha aan ku arki doonaa insha Allah. And for example, A divided by B ama A loo qaybshay B ama A la hoos dhigay B haddii loo geeyo C la hoos dhigay B. Jajabka noocaan ah maxaa loo yaqaanaa? Jajabka noocaan waxaa loo yaqaanaa jajab uu hooseeyihiisu uu isku mid yahay. Haddaba haddii jajab aad aragtid hooseeyihiisu uu isku mid yahay, mid ayaa laga soo qaadanaya. Haddii mid laga soo qaato B haddii B loo qaybsho waa hal A ku dhufo waa A oo loo geeyay leedahay B haddana mar labaad B u qaybi waa hal ku dhufo C waa C. Tira haddii lagu dhufto doorsoomo haddii lagu dhufto doorsoomihiisu buu noqonaya. Haddaba nidaamkan ayaad u xalinaysaa ileen A iyo C tiro isu geysamay maahan. Jajab noocaan haddii aad aragtid waxaa loo yaqaanaa jajab uu hooseeyihiisu isku mid yahay. Marka waxaad isugu geynaysaa nidaamkan aad isugu geynaysaa. Haddaba iyadoo tiro ahaan ayaan arki doonaa insha Allah. iyadoo tira ahaana fiiri haddaba iyadoo tira ahaana 1/9 1 loo qaybshay 9 oo loo geeyay 5 loo qaybshay 9. jajabkii waa kan waa kii oo kale wada B 9 iyo 9 laba waa hooseeyaha waa isku mid. haddaba jajabka haddii aad aragtid jajab uu hooseeyihiisa isku mid yahay maxaan dhahnay hooseeyaha mid ayaa laga soo qaadanaya 9 u qaybi 9 waa hal ku dhufo waa hal oo loo geeyay 9 u qaybi 9 waa hal 5 ku dhufo waa 5. haddaba kuwan waa tiro oo way isku tagayaan. hal loo geeyay 5 waa imisa waa 6 loo qaybshay maxaan leenahay 9. Okay, sidaan horey ku soo baranay haddii meeshan waa iska joojin kartaa haddii kalena waxaad gaarsiin kartaa lowest term aad gaarsiin kartaa ama decimal number ayaad u bedeli kartaa. Okay, haddaba 6 iyo 9 tiro ay wadaagaan haddii ay jirto waa u wada qaybinaysaa. Okay, lowest term si aad u sii gaarsiisid. Okay, 6 loo qaybshay 3 waa imisa waa 2. 9 loo qaybshay 3 waa imisa waa 3. haddaba kan muxuu gaaray qaybtii ugu dambeysay ayuu gaaray oo halkan ayaad ugu sii bedeli kartaa decimal number sidaan casharkii horeba ku soo baranay. haddaba waa inaad la soo socotaa casharada sida iskugu xigaan si aadan hadhow ugu wareerin sidii ay ahaayeen casharkeena. Okay, tusaale labaad ayaan meesha ku baran doonaa tan la mid ah. tusaalehen labaad wuxuu noqon doonaa example 2 wuxuu noqon doonaa 1 divided by 4 tusaale oo loo geeyay 3 divided by 4 oo kale. Okay, maxaan leenahay sidaan markay tahay 4 iyo 4 waa isku mid hal ayaan ka soo qaadanaynaa waa 4. Okay, marba haddii aad halka soo qaadatid 4 u qaybi mar walba stepkan aan u qaybi aan ku leeyahay waxaad ku baran doontaa oo uu ku fududeyn doonaa qaybaha dambe ee soo socda si aad si fudud aad ugu wareerin oo aad u xisaabsatid kuwa dambe ee soo socda. laakiin haddii ay mid isku mid yihiin ka soo qaado 1 + 3 aan dhaho way ka qaldamaysaa hadhow dambe sidaa ma noqon doonto. haddaba 4 u qaybi waa hal ku dhufo waa hal oo loo geeyay leedahay calaamadii loo geeyay waa tan Soomaa 4 loo qaybshay 4na waa imisa waa hal 3 ku dhufo waa 3. Okay, haddaba hal loo geeyay 3 waa imisa waa 4
afar loo qaybshay afar nasiibku isugu soo aaday afar u qaybi afar waa imisa waa hal. okay qaabkan ayaa la isugu geeyaa fractionada hooseeyahoodu uu isku mid yahay. haddaba waxaa laga yaabaa inaad aragtid fractionada hooseeyahoodu uu kala duwan yahay. fractionadaas hooseeyihiisa ay kala duwan yihiin sideen u xalinaynaa. okay ayagan tusaalooyin kooban ayaan ka bixin doonaa insha Allah. tusaale fraction uu hooseeyihiisu kala duwan yahay. tusaale waxaa lagu yiri add isu gee 3/4 plus 2/3. okay jajabka markuu noocan uu u qoran yahay ee ah 3 la hoos dhigay 4 oo loo geeyay 2 la hoos dhigay 3 ama 3/4 plus 2/3 ayaan u akhrinaynaa sida loo akhriyo jajabka hore ayaan soo baranay. okay haddaba sideen ayaan isugu geynayaa waa easy aad ay u fududahay. waxaan sameynaynaa LCM kooda ayaan raadinaynaa hadday wax wadaagaan LCM ku waa iska easy. hadday wax ay wadaagaan waxyaabihii ay wadaagaan aad u wada qaybinaysaa. haddii wax ay wadaagaan aysan jirinna labadan hooseeya waad isku dhufanaysaa. okay haddaba waxaan leenahay 4 iyo 3 laba tiro u wada qaybsami karta ma jirto. yani ma lahan ii sheeg isir ay wadaagaan ma lahan. haddaba haddii aysan isir ay wadaagaan aysan lahayn waxaad samaynaysaa labadooda aad isku dhufanaysaa. 4 lagu dhuftay 3 waa imisa waa 12. okay 12 u qaybi 4 waa imisa waa 3. 3 lagu dhuftay 3 aad leedahay. 3 lagu dhuftay 3 waa imisa waa 9 oo loo geeyay 12 u qaybi 3 waa maxay waa 4. 4 lagu ku dhufo waa 8. okay haddaba 9 loo geeyay 8 waa imisa waa 17 oo loo qaybshay 12. halkan aad iskaga joojin kartaa. okay waa markii waa qayb labaad. qaybteena hore waxay ahayd hooseeyaha ay isku mid ah. qaybtanna waa maxay hooseeyihii ayaa kala duwan oo wax ay wadaagaan ma lahan. okay qayb saddexaad waxay noqon doontaa iyadana iyadoo ah hooseeyaha mid LCM leh ayay noqon doontaa 3 divided by 5 divided by 6 oo loo geeyay 4 divided by 3. okay waa qaybtii saddexaad. qaybtan saddexaadna waxay noqon doontaa ayagoo leh LCM. LCM waxaa loo yaqaanaa least common multiple. waa midka ugu yar ay wadaagaan ayaga ay ka dhigan tahay. LCM kooda ayaan raadinaynaa. kaliya waxaan raadinaynaa LCM. jajabka markuu noocan uu yahay uu qayb uu wadaago uu leeyahay LCM kooda ayaan raadinaynaa. haddaba LCM ka see loo raadiyaa 10 aad ayaan ugu hadli doonaa faktarada anagoo ku saleyn doono GCF ka anagoo raadin doono anagoo LCM ka raadin doono. laakiin haddeer kaliya waxaan usoo qaadanaynaa as a note ayaan usoo qaadanaynaa. LCM kooda markaad raadinaysid 6 iyo 3 nidaamkan aad u qoranaysaa. okay maxay wadaagaan 6 iyo 3 tiro wada qaybsami karto 3 ayaa wada qaybsami karto. okay 3 u qaybi 6 waa 2. okay 3 u qaybi waa 1. okay halkan waxaad leedahay 2 u qaybi waa 1 iska soo deji kan. haddaba markaad leedahay 3 lagu dhuftay 2 ayaa wuxuu noqonayaa LCM kii oo 6 ah. 3 lagu dhuftay 2 waa imisa waa 6. haddaba waxaan leenahay tiradan LCM keeda waa intan. haddaba haddii aan laga yaabo haddii aan kaa boobsiiyey videoga mar walba gadaal u soo jar ee fiiri si aad u fahantid. okay 6 ayaan leenahay 6 u qaybi waa imisa waa 1. 1 ku dhufo 5 waa 5 plus 6 u qaybi 3 waa imisa waa 2. 2 4 ku dhufo waa imisa waa 8. okay 5 loo geeyay 8 waa imisa waa 3 iyo 10. ilaan 2 halkaan usii geey waa 10. 3 ay ugu soo hartay waa 3 iyo 10. 3 iyo 10 loo qaybshay 6. halkan ayaad ku joojin kartaa. okay haddaba haddii aan si summary aan usoo dulmaro summary wuxuu noqon doonaa jajabka intaad isu geynaysid 3 nooc ayuu noqon karaa. qayb hooseeyahoodu isku mid yahay waan aragnay si loo xalliyo. qayb uu hooseeyahoodu kala duwan yahay waan aragnay si loo xalliyo. qayb uu hooseeyahoodu ay wax wadaagaan LCM ha ahaato oo LCM ay wadaagaan. haddaba saddexdan qaybood ee addition-ka ah halkan ayaan intaan ayaan u wada qaybinay. haddaba qaybteena halkan ayay inooga eg tahay maanta qaybta casharkan addition-ka. qaybta dambena waxaad kala socon doontaan casharka kan xiga. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.